wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal oo maanta safar shaqo ku soo gaaray xarunta gobolka Saaxil magaalada Berbera ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa. waxaan u imi shaqo wasaaradda ah marka shaqada wasaaradda waxa muhiim ugu ah ugu weynaa mashruuca solarka oo heer gabagaba ah maraya inaan la socono halku marayo sida uu diyaar u yahay inuu magaaladii anfaco waxaan loo sameeyaa in kii weydiinayay shirkad baa ayaa dabku ka dabdamaa oo aan dabki ku filayn magaaladii taadeer loo keenay 7 megawatt oo solar loo rakibay waxa weeyaan inay baahida Berbera inay daboosho marka mashruucaas oo muhiimadiisa leh halka uu marayo iyo diyaar garowgiisa sidii uu dadku uga faa'iideysan lahaa in Berbera marka loo waraabin lahaa leedahan ayaan u nimid dawladda ayaa xukuumadda leh oo ay ku caawisay Abu Dhabi Fund dawladdaana la wareegaysa Soomaaliland laakiin dawladdu magaalada boolal iyo laymankii magaalada iyo wixii dib maraane cid qaab baan ugu talagalaynaa magaalada si uu u gaaro dabku طبعا waxa la adeegsanaya waxa weeyaan shirkadda magaalada light ka siisa laakiin waa hanti dawladeed weey laakiin waxa jira midalan qaar baan arkayay la meesha ceel baxay wax lagu soo celin waxba laga qodaa dawladdu heshiiskii ay la gashay dadka kuma soo celin horta dawladdu iyada dadka mas'uulka ah dadka heshiis lama gasho dawladdu shirkad ma aha cid shirkad heshiis la gashay waxay mas'uul ka tahay macdanta iyo khayraadka wadanka waxa leh oo mas'uulka ah xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dadkana waxa mas'uulka ah xukuumadda iyo dawlad baynu nahay khayraadka wadankana waxa wada leh ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland maamulkeedana wasaarad baale heshiis lama galo dad meel degan wasaaraddu lama gasho laakiin wasaaraddu waxay waajib ku ah inay wixii meel ka soo baxa ee khayraad ee ka soo baxa inay degaankii wax ku celiso sidoo kale waxa uu soo kormeeray xarunta kaydka tamarta cadceedda oo ay magaalada Berbera ka hirgelisay dowladda Imaaraadku waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul